wafdi ballaaran uu hogaaminayo garaadka beelaha dhulbaante garaad jaamac garaad cali ayaa lagu soo dhaweeyay degmada xidxidh ee gobolka Sool. Soo dhaweynta garaadka guud ayaan loo kala hadhin waxaana garaadku dhex qaaday bulshada reer xidxidh. Safarka garaadka ayaa daarnaa ka qaybgalka shirweynaha beesha bahar samee oo la filayay inuu ka qabsoomo degmada xidxidh ee gobolka Sool. soo dhaweyn ballaaran kadib waa kuwan qaar ka mid ah kelmadihii goobta soo dhaweynta laga jeediyay. soo dhaweynayna wafdi kala la socotay ee qolka joogta ah wasiirada dadweynaha beesha bahar samee waa soo dhaweynayna uqaasha magaaladani waa magaalo bahar samee waa magaalo kamid ah magaalooyinka bahar samee xaq baana loogu leeyahay soor baana loogu leeyahay waa soo dhaweynayna boqolkiiba boqol gacmo furan baan soo dhaweynayna waxaan leeyahay ku soo dhawaada wafdiga uu wata إن شاء الله تعالى وفتيك لا سوس إن شاء الله تعالى وسود كاجي دجاج حيد أروكو هذا عودك دجمة حيد أيام وحن كوسو لويننا كل كاجي دجاج كاجي مجال هذه شعب كاجي أيام كوسو لويننا هذيك إياه وسيرة iyo waftiga madaxda badan ee kula socota intaba waxaan ku soo dhaweynaa qalbi furan iyo uqaasi odayaasha qalbi furan qurba joogta intaba waxaan ku soo dhaweynaa anagoo ah waftigaanka xidxidh waftigiisa ka badiyay waftigaas oo dhan waxaan ku soo dhaweynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum asalaam Garaad waxaan aad iyo aad si sharaf leh oo qiimo leh aan aad iyo aad uga mahad celinayaa mahadoo dhan ee baalay laakiin maxaad ugu celinayaa odayaasha caaqilka odayaasha dhaqanka ningarboodka haweenka shacab weynaha reer xidxidh ee maanta tolkood oo garaadkii guud hogaaminayo garaad jaamac garaad cali iyo uqaashi chief caaqilkii dhammaan ku soo dhaweeyay duleedka xidxidh aad baan uga mahad celinay hogaaminayay reer xidxidh halkan dad badan dood xagar aad iyo aad fardana lagu soo dhaweeyay shacabkii wax garad odayaashii uqaashi reer xidxidh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta salawaatullaahi wasalaamu calayh caaqilka iyo odayaasha xidxidh iyo dhalinyarada sida habsamida leh ee tollimada leh ee sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen waa ka mahad celinaynaa wafdiga iyagan jiif caaqilka gudoomiyaha guddiga qabanqaabada cuqaal iyo waxgarad kalaba leh shirkan u socday waa ka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee naloogu soo dhaweeyay magaalada yadii insha Allah ta'ala ilayna waxaynu ka baryaynaa shirka inuu inooga yeelo mid aynu khayr iyo wanaag badan aynu insha Allah ta'ala alla inagu gaarsiiyo. safarka garaadka waxaa ku wehelinayay ex wasiir gargaar Xuseen Carab oo qayb ka ahaa mas'uuliyiintii lagu soo dhaweeyay degmada xidxidh ee gobolka Sool. aad iyo aad badan mahadsantihiin وديك بعض نقدنا سونا ويتا فرح بدن برتقلتها قيمها بدن جراد كيو فكر صار كلو علمي وقربة شوب عقال معهم كنا مضح كلا أنا وقفت جراد كمان تعيد كم قريب بالو ملايين يا هذه بعد ما تنتهي جوجش دكتين بلوين تبهر السبب شركة مقع خير كان الله بحندونا جوجش يصدقتين هذه بعد ما العنينا waxaan maxal Xuseen gal wuxuu kala cada ku badata qolada barigu markay lagu soo bataan kala cadi la wayaraan Saal Xuseen kala cadi sanadka ma jirto way ka yaraanaysa aad iyo aad waa Cabdiraxmaan Kayse Tungub Kalsan TV laascanad